ودقح إلا قدلو دبر العاية ورن إلى شباب كتلا دبر قوي وعذر المية فرغين دود ودقح إلا قدلو دبر العاية ورن إلى شباب كتلا دبر قوي وعذر المية فرغين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة كسر هذا برنامجك برانو راديو أفدو. برنامجك أنت بدنا وحنا وهذا معلومات الحريرة لباتوين كي جستان كوارثة يصير دنيا قلدين أي بلشة أولمي بالهايين. برنامجك مع أنت وحاول كسافسين هاي موضوع كسافسان دنيا كتر سنة الشباب يجعلنا كسر بحان سيلو قارسين كرا باقي مدحضة إيها إلا عفية يقف كستا أوربا إنه أشاب كسر بحق أو بلشة لم يدوبي ربو أو بلشة لم يدوبي كرو. برامجك وحمرتكو شروع عمر إبراهيم أو قبيل كأنك شروع سودو مركوري سيدات أن يرضى جعل إنه كسر بحان لو قاسين كلا باقي مدحضة إيها إلا عفية يقف كستا أوربا إنه أشاب كسر بحق. والدواء يوراك يا عبد الله حسن الهذا كجرا من كان وزيرك شركة خوارزتا مدحضة الدولة فدرالك الصومالية أما مدحضة الدولة الوالدية باقي كلا الدولة يجدريين ومر معها لو ما سدح معها مر والبفري معها مدحضة الصلاة ذلك كصوب حياة لو عفين أيو الهذا لقلتي فكر كذا لقلتي كجرا الشركة الجسدة ولو باقي إني كصوب حان dhibaatada iyo hadardaamada ay ku hayaan dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda dhibaatada ay ku hayaan inay ka soo baxaan oo ay u imaadaan dawladooda dadkooda bulshadoodii hooyadood waalidkii ama cunugii waalidkiisi uu la noolaado madaxda dawladda federaalka mar walba way ku baaqdaan madaxda dawlad goboleedka marka waxaan dhihi karaa baaqaas oo mar walba way ku soo celceliyaan madaxda dhalinyarada mar walba waxay uga qayb qaataan maadaama wacyigelinta badanaa ay madaxda warbaahinta ay adeegsato oo loo gudbiyo dhalinyaradan inay soo dhiibaan oo cafis loo fidiyey ama heer madaxweyne federaal ha noqoto ama heer state ha noqoto saraakiisha ciidanka naftirkooda badanaa ay dirayaan baaq inay soo dhiibaan intii goor ay tahay marka mar walba waxaa loo taagan yahay sidii bulshada Soomaaliyeed ay ugu soo biiri lahaayeen dhalinyaradan fikirkooda la qalday qofka dhalinyaradan ma aha ayaga kaliya ma aha macala nimanka madaxdooda sare ugu sareysan baaqan uu ku saabsan yahay oo madaxda ugu sareysan milishiyadka argagixisada inay ka waantoobaan ay ku soo biiraan bulshadoodii dadkooda soo dhaxgalaan baaqa uu badan yahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee la qalday sidee bulshada u midoo karaan dhalinyarada fikirka xaq jirnimada lagu qalday oo aanu ku jiro nimanka argagixisada ah waxay bulshada ku midoobi karaan waa inay horta marka koowaad ay soo dhiibaan oo ay dawladda gacanta dawladda ay soo galaan waa inay markaas ay u cadeeyaan bulshadii inay ka baxeen fikirkii qaldanaa ama maskaxdii qaldaneed ee shalay lagu shubay ee qawaasnimada ahayd ama dhanka diinta ay ka looga beesheegay in xadiiskii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo si qaldan loo fahansiiyey markay dhalinyaradan waxay bulshada kula midoobi kartaa ayagoo wacyigelin markay soo dhiibaan wacyigelin loo sameeyo dawladda ay meel ay ku xarayso la wacyigeliyo maskaxda bini aadanka wixii hadba lagu shubo dhalinyaradaana markii ayagoo yaryar nimanka inta waddanka ka talinayeen waa taqaanaa ay haysteen jiilkii yaraa muddo 15 sano ay cariga ay haysteen ay maskaxda ku beerayeen hadba wax ugu shubayeen wixii maskaxdaas looga shubay cunugan yar ama ninkan soo dhiibayo oo madaxa looga shubay wax qaldan waa inuu horta laga dhaqaa mimirigaas laga tirtiraa mimiriga markii laga tirtiro oo wax lagu shubo wadaniyad dal jacayl ehel jacayl qaraabo jacayl wadan jacayl markii lagu shubo oo la arko qofkan maanta inuu safe yahay wixii hore uu
maskaxdiisa ku jirtay ama maskaxdiisa ka guucayay ee xagjirnimada laga sifeeyey oo la baraa goobaha hadda waxay qanaacinta lagu sameeyo dowladda ay gacanta ku hayso ama dowladda ay gacanta ku hayaan waxaa ku jira fursado badan oo ugu yaala waxbaa la baraa diintii sida qaldan looga dhadhiciyaa si fiican loo baraa maadi iyo diini baa la baraa haddana ka bacdi waxaa loo sii gudbiyaa qofka wax alla lagu doonayo oo uu rabo la sii baraa marka waxay kaga qayb qaadan karaan bulshada ula midoobi karaan waa inay fikirkoodii hore ay ka waantoobaan ee bulshadooda soo dhex galaan waa tahay weli waxaad dhegeysanaysaan waa barnaamijka baraarug oo aan maanta ugu hadlayno dhalinyarada ka tirsan al-shabaab ee jecel inay ka soo baxaan sida lagu gaarsiin karo baaqii madaxda ahaa in la cafiyey qof kasta oo rabo inuu al-shabaab ka soo baxo oo bulshada la midoobo dib ayaan ugu laaban doonaa balse markaan ku soo dhawaada fariin ka hadlaysa sida dhalinyarada Soomaaliyeed isu soo dhiibi karaan fariin muhiim ah ma tahay muwaadin ay qaldeen kooxaha qawaariijta ah oo doonayo in uu ka soo laabto qaladkaasi kana faa'iideysto fursadaha ay siisay dawladdu ma tahay waalid ama ehel doonayo in uu caruurtiisa walaalkiisa iyo qof ay ehel yihiin oo ku jira qawaariijta ku saacido in uu ka soo baxo inta aanu ku halaagsamin ma u baahan tahay in aad hesho macluumaad ku saabsan sida aad adigu ugu soo bixi karto kooxaha qawaariijta ama qof uga soo saarto ma doonaysaa in aad ogaato sida dawladdu ku soo dhaweynayso ama fursad aad bulshada kula midowdo kugu abuurayso haddaba si aad arrimahan oo dhan uga faa'iidaysato waxaan kugu soo bandhigaynaa halka aad la xiriiri karto marka hore wac nambarka gaaban ee 999 kadibna haddii aad kaga dhowdahay ama aad doonayso in aad la xiriirto qaybta dhaqan celinta ee Muqdisho dooro 1 haddii aad doonayso qaybta Galmudug dooro 4 haddii aad doonayso qaybta Koonfur Galbeed dooro 3 haddii aad doonayso qaybta Jubbaland dooro 2 waxaa gacmo furan kugu soo dhaweyn doonaa xirfadlayaal ka tirsan hay'adda qaran ee Tubsan kuwaas oo loo carbiyo shaqadan kuna siin doono caawimaad aad u baahan tahay fadlan inta aad haysato fursadda ka faa'iideyso وهاجا كسي أن كيقدم فرنتاسي وحد احتال وهيد برنامجك برالك وحندب الله ونياه قبيرك برنامجك شروع عمر محل قدوني يقفك دليرة دولة السعودية بي إن قفك دليرة دولة السعودية بي عمل لها مها أمني السعودية بي وإن وهرتر المرك كوباد وقادوه ماشو السعودية بي إنهي تاي ميل أمنية cadaaladi ka jirto nabadi ka jirto bulshadiisii bulshadiisiina u imaado dowladdiisii iyo wadankiisiina uu ku soo laabtay fikirkii qaldanaa oo awal ku jiray na uu ka soo laabanayo inuu ogaado marka waxaan leeyahay dhalinyartiisa soo dhiibaysa waxaad u imaanaysiin dalkiina dadkiina ehelkiina waalidkiina intaba waad u imaanaysiin kasoo baxa had iyo goor howlgallada socdo weli cafisyaha madaxda dirayaan mar walbo dawladda waxay garab siinaysaa cunuga ama dhalinyarada la qalday fikirka qaldan lagu shubay in ay mar walbo ay u taagan tahay dawladda inay garab siiso oo had iyo goor ay kasoo baxaan fikirkaas qaldan ay ka waantoobaan oo bulshadoodana kusoo diraan shaqabuur noocee ayaa loo sameyn karaa dhalinyarada ka soo baxda safka qawaariijta dhalinyarada ka soo baxda safka qawaariijta shaqooyinka way badan yihiin qof walba wuxuu jeclaado sidaan ognahay kuwo badan oo hadda ku jiro iyo kuwo ka soo baxayba goobaha dhaqan celinta way jiraan kuwo hadda iska shaqaysta oo shacabkoodii ku dhex jiro oo goobo ganacsi ugu furan waxaa jirto goobaha meesha ay ku jiraan ee dhaqan celinta waxbarashay leedahay iskuulaad dugsiyo sare iyo dugsiyo hoose leedahay markay meeshaas waxyaabaha lagu baraa waxaa la baraa farsamada gacanta oo kale elektroniga korontadoo kale biyaha oo kale farsamooyinka kala duwanaa la baraa shaqo abuura loo sameeyaa marka qof walba qofbu wuxuu dooranayaa inuu iska bahalka oo gurigiisa iskaga laabto ehelkiisa iskala joogo la midoobo qof wuxuu baranayaa inuu shaqooyinkaas kala duwan ee la baray inuu hadhow uu xirfad u yeesho uu hal abuur u noqoto uu hadhow ku shaqo tago
marka shaqaabuhu fiicanay u leedahay. waa tahay dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa qaybtii hore ee barnaamijka baraarug markana waxaa idinku xiraya cabdulqaadir haadi oo sida dhammaystiri doona barnaamijka dhankaasi dhegeystayaasha. mahadsan xusni waa hagaag dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybtii dhegeystayaasha ee barnaamijka baraarug. dhegeystayaal barnaamijka waxaan la socodsiin doonaa anigoo haadiya dhegeystayaal soo dhawaada ayaa idin leeyahay mar kale dhegeystayaasha haddii waxay naga soo beegsan karaan 75 ayay naga soo beegsan karaan dhegeystayaal soo dhawaada ayaa idin leenahay waa qaybtii dhegeystayaasha ee barnaamijka baraarug. soo dhawaada dhegeystayaal mar kale halkaad naga dhegeysanaysaanina waa raadiyo afmadow codka dowlad goboleedka Jubbaland. soo dhawaada dhegeystayaal. dawadoodu waa dhagax in lagu dilo dabhalcaaya iyo waran. haddii mar kale aan dhegeystayaasha leenka aan dib u xasuusiyo waxay naga soo beegsan karaan 75 ayay naga soo beegsan karaan. soo dhawaada ayaad leeyahay dhegeystayaal 47 waa xagga fariimaha dhegeysta ayaa khadka ku jira haddii aan eego. soo dhawaada dhegeystayaal halkaad naga sii magacaaga. walaalka waandhahay aad baan ku salaamayaa adeegii bahda idaacadda. inta kadib barnaamijka waxaan kaga qeyb qaadanayaa waa la gaarsiin karaa dhalinyaradaas waxaan lagu gaarsiin karaa in la sameeyo maxaa la dhalinyaro dee ka shaqeysa oo lacag lagu siiyo oo tababar loo qabto oo ayaga ku dhex jirta oo dhex tagta oo maxaa la dhahayay aan la fahmin. waa in sirdoon la samaysto shabaab dhex jooga waayo haddii aan la joogo halkana la taagnaan oo ilmahaas xoolihiisa waxba looga sheegi karo. dadkaasi waa dad xabsi ku jira, waa dad aan social media isticmaalin, waa dad telefoonadooda lagu kantaroolo, waa dad adi xabsi kodka feerin ku jira. marka walaal saasaa lagu gaarsiin karayaa isleeyahay. aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystahaasi waa uga mahad celinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka u qayb qaatay. hagaag dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaani waa raadiyaha codka dowlad goboleedka Jubbaland studio dhexe degmada Afmadow. dhegeysta ayaa khadka ku jira haddii aan xaggiisa dib u milicsado. dhegeystalu magacaaga halkaad naga soo wacayso adigoo iska fogeynaya aaladda aad naga dhegeysanay. soo dhawaayaan ku leeyahay dhegeysta. walaal aan dhawahay idaacadana aad baan usoo dhaweynayaa sida quruxda badan ee barnaamijka ay nagu soo deysay. intaa kadib walaal barnaamijka waxaan kaga qayb qaadanayaa waa la gaarsiin karaa dhalinyaradaas waxaan lagu gaarsiin karaa dee dawladdu marka ugu horeysaa inay sameyso dad shacaba oo sirdoon ah oo nimankaa ku dhex jira oo ragga qaar tashkiilin kara oo xishin kara. waayo iyagu laftirkoodu dadka ay ka haystaan tashkiil bay ku haystaan. dawladdu waa inay yeelato dad wax tashkiilin kara, waa in loo jeesado. way adag tahay laakiin haddana waa in la isku dayo waayo wax walba haddii aada isku dayda dee mar baad ka niib keenaysaa soo maha. marka dawladdu ay isku dayda ayaan leeyahay. intaas ayaanan barnaamijka ka qayb qaadanaya. aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaasi waa uga mahad celinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaatay. mar kale dhegeystayaashu waxay naga soo beegsan karaan 75 ayay naga soo beegsan karaan dhegeystayaashu. halo dhegeyste. hale waan ku maqlaa aad baan kuu salaamayaa adigana. barnaamijka walaal waxaan kaga qayb qaadanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan waa la gaarsiin karaayo dhalinyarada shacabka tirsan waa la gaarsiin karaa. waxaa lagu gaarsiin karaana waxay tahay in dee dhalinyarada loo sameeyo dad kale oo dawladda la shaqeeyo oo dawladda ku jiro oo gaarsiin kara fariimaha dawladda. waayo dadkaasi xabsi kor ka fiidan bay ku jiraan oo lama inta ugu badan ma gaari karo maxaa la dhahay ma gaari karo waayo social media ma jiro dadkaas isticmaalaan oo dee maanta hadday social media ay daawan lahaayeen oo adduunkan ay la socon lahaayeen ayaga laftirkooda maskaxiyan iyo caqliyan way shaqayn lahaayeen. laakiin dadkii hadda qof soo tagay oo dee dawlada soo galay ma ogiye qof amuu noqon cid ka yeelaysa ma jirto waayo dadkii intii nimanka aaminsan baa ka badan. marka walaal anigu waxaan leeyahay intaas ay nimanka lagaga adkaan karaayo oo fikirkaas maxaa la lagu gaarsiin karaa dadkaasi sidii ay uga soo bixi lahaayeen nimankaasi. aad ayaana u salaamayaa bahda idaacadda. aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaasi aad ayaan ugu mahad celinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaatana. aad baan uga mahad celinaya dhegeystayaal. weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka baraarug. dhegeystayaashu waxay naga soo beegsan karaan 75 ay naga soo beegsan karaan waa qaybtii ugu dambeeyay barnaamijka. soo dhawaada dhegeysta.
ما dirnaxo waa tugaag dad qalata ila shaydaanka dila dambi kama iman qaybtii ugu dambeeyay ee barnaamijka baraarug ee labaad ka dhegeysataan 88.8 hadduu dhegeysta ugu dambeeya haddii aan fursad siiyo soo dhawo dhegeystay magacaaga halkaad naga soo hayso walaalkeed baan dhawahay idaacadda iyo dhammaan bulshadana aad baan u salaamayaa intaa kadib kale waxaa kaga qayb qaadanayaa dowladda Soomaaliya waa inay marka ugu horeysa dowladaha xubnaha ka ah inay marka ugu horeeya ay qayb ka qaataan oo ay sameeyaan dad la shaqeeya oo gaarsiiya in la badiyo idaacadaha iyo wacyigelinta deegaanada qaar hadda idaacadaha qaar way ka shaqeeyaan shabaab ay joogaan in idaacadahaas lagu daayo hadda deegaanka xagar oo kale idaacadda afmudug waa ka shaqeysa oo laga dhegeystaa inta badan barnaamijyadaasna dadku si dhuumashay ku dhegeysan karaan oo dee qof hadda bareer u dhegeysan kara waayo qofka inuu meel laga soo baxaan ay arkaan uu ka cabsadaa hadda idaacadaasi waa idaacadda keliya hadda aan isleeyahay deegaano shabaab ay joogta ayay gaadhaa in idaacadaasi xoogga la saaro oo lagu gaarsiiyo fariimaha dadkana aadaya u jeclaa dhammaanna waan salaamayaa bahda idaacadda intaasayaan barnaamijka qaadanaya walaale dhegeystahaasi aadaan uga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaatay waana dhegeystii ugu dambeeyey ee barnaamijka dhiisal taniya intaan ku kulmi doono barnaamijkiisa halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa waxaan idinkaga tegayaa saasi amaan allah al-shabaab dila 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 shababkana dila